iyo markii colaaduhu ay ka bilaabeen dalka Suuriya, kumanaan qof oo Suuriyaan ah ayaa u qaxay wadamo badan oo caalamka ah. Soomaaliya waxa ay ka mid tahay meelaha ay ku soo qaxeen qaxootiga reer Suuriya si ay nolol cusub u sameystaan, qaarkoodna ay fursado shaqo oo kala duwan ay ka heleen dalka, halka ay kuwa kalena ay sameysteen shaqo abuur ayaga u gaar ah. Umma Maxamed waa hooyo Suuriyaan ah ku nool magaalada Muqdisho, waxa ay nolosheeda ku maareysaa iibitaanka tusbaxyada iyo catarada. سوريين يعني ناخذ مسابح وناخذ عطر من تاجر تجارة. waxaan ka ganacsanaa tusbaxyada iyo cadarada si aan u maareyno nolol maalmeedkeena. Annagu Soomaaliya ayaan uga soo cararnay dagaalka ka jira dalkeena. Shaqo kale oo aan qabanno ma jirto oo aan ka ahayn in aan gadno tusbaxyada iyo cadarada. Tusbaxyada waxaan ka soo gadanaa suuqa, kadib ayaan dib u gadnaa. tusbaxa waxaan gadnaa $2, cadarkana $2, midna waa $1 iyo badh. Ilaahay baa mahadle, si fiican ayaana looga gataa. Soomaalidu waa inoo naxariistaan, Ilaahay ha barakeeyo. Barakallahu fiikum. Samaynta tusbaxyada oo ay caan ku ahaayeen Suuriyaanka ayaa noqotay ganacsi ay si fudud u fahmaan bulshada Suuriyaanka ee ku nool magaalada Muqdisho qaarkood. يعني نشتري من الصومالي ونبيع تسبح نسترجع باب الله تصبح دib ayaan u soo gadaa. Ilaahay baan risaaqada weydiistaa. Nabigeena Muhammad nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu dhahay muslimiintu waa walaalo, shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka Suuriyana waa walaalo. Tusbax waan gadaa, cadaradana sidoo kale waan iibiyaa. wax kale oo aan sameeyno ma laha. Soomaaliduna waa dad wanaagsan oo naxariis badan, aad bay naxariista noogu muujiyaan, way fiican yihiin, tusbaxyadana aad bay noogu iibsadaan. يعني نشتري ونبيع هي المشكلة والله. qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa ku dhiirigelinaya Suuriyaanka in ay shaqeystaan, sidoo kalena ku baraarujinaya bulshada Soomaaliyeed in ay wax ka iibsadaan. والله muddo ka hor uniga hadda waxa arkay asigoo oo wato warqad EVC number ugu qoran tahay oo dhahayo wax igu tuur. hadda laakiin waxa arkayaa wiilkii aniga tusbax gadooyo marka aad iyo aad ugu faraxsanahay oo waxa didaacada way istaagtay macnaha qofka bini aadanka marka hore u socaayo waa inaad garab qabataa wax allaala waxa uu awoodid waa inaad u sameeysaa xitaa ha ahaatina maanta hal tusbax gadato waxba u sameeysan ninka maanta wuxuu soo baxay hal tusbax xitaa hadii laga gadsiino waa qanacsan yahay ilaa maanta wuxuu soo baxay way soo maahan marka aad iyo aad u dhiirigelinay dadkan dad muslimiin oo walaaleen waaye dad oo halkaas soo kusoo dhibaatoodeen oo imaadeen intiina caawinina waaye kuwa masaakiin waa tugsadaan kuwaana xoog maalato waaye inaan caawino wax ka gadano waaye saaxib dadkan dad islaan waaye waan in la caawiyo waaye haddaana tusbaxana ka qaatay intaas awooda insha Allah wixii dhimanna waa ka ayaga waaye. Qaxootiga Suuriyaanka ee ku nool Soomaaliya si xor ah ayay uga shaqeystaan Soomaaliya maadaama aan wadaagno diinta, dhaqanka iyo carabnimada. waana sababta ay Suuriyaanka badan ugu soo dhiiradeen imaatinka Soomaaliya oo ay hadda ku haystaan nolol cusub.